Assalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibayaal mar labaad. Ku soo dhawaada Akaademiyadda Maal-Africas Academy, madal lagu barto kala beddelka sarifka lacagaha qalaad iyo macdanta hab online ah. Waxaynu ku soo jirnay taxanaheennii waa maxay Forex iyo inaynu aqoon dhammaystiran ka helno Forex wuxuu yahay. Haddii aad ila soo daawatay casharadii ugu dambeeyay casharkii ka horreeyay, waxaad soo fahantay Forex wuxuu yahay iyo waxa loo soo gaabiyey. Sidoo kale waxaad soo fahantay Forex lacaguhu sida ay isku raacraacaan iyo saddex qaybood oo lacagaha loo qaybiyo. Sidoo kale waxaad soo fahantay inta saacadood ee suuqan laga shaqeeyo. Sidoo kale waxaad soo fahantay inta maalmood ee uu furan yahay suuqani. Maanta waxaynu dhiganaynaa lesson-keennii labaad ama casharkeennii labaad, wuxuuna ku saabsan yahay sariflayaasha suuqan Forex waayo. Suuqan aan ka shaqaysano ee foreign exchange ama sarifka lacagaha qalaad waxaa qayb ka ah 5 waaxood oo hadda halkan idinka muuqda. Mid walba waxaynu ugu tagnaa gaarkiisa inagoo insha Allah sida gaarkiisa u sharaxno. Suuqan waxaa qayb ka ah 5 waaxood. Ta koowaad ee qaybta ka ah waa dowladaha iyo bangiyada. Ta labaadna waa bangiyada khaaska loo leeyahay. Ta saddexaadna waa ganacsatada iyo shirkadaha waaweyn. 4 waa hanti maamulayaal iyo maalqabeeno. Iyo ka shanaad oo ah shacabka intiisa kale, aniga oo Cabdiraxmaan Rigaaxa iyo idinkoo aad dhegeysanay. Haddaynu ku horeyno ka koowaad waa dowladaha iyo bangiyadooda. Sidee bay suuqan qayb uga yihiin? Doorka uu bangiga dhexe iyo dowladdiisuba suuqan ku leeyahay waxa ay ku xidhan tahay dowladdaas dhaqaale ahaan meesha ay adduunka ka joogto iyo kaydka lacageed ee bangigooda dhexe ku kaydsan. Doorka ugu muhiimsan ee bangiga dhexe uu suuqan ku leeyahay ayaa ah in uu bangigu yahay meesha ay ku kaydsan tahay lacagtan qiimaheedu hawada heehaabayo ee ay sariflayaashu kala beddelayaan. Sidaynu casharkii hore ku soo sheegnay, lacagtan heehaabasa baynu inuu ka faa'iidaysanaa oo haddii lacagtu standard tahay oo lacag meel taagan ay tahay, maanta wax sarifla ah adduunka kuma jiro. Qiimayaasha isbedbedelaya baynu inuu ka faa'iidnaa. Bangiga dhexe waxa uu suuqa ku yeelan karaa saameyn muuqata maadaama uu awoodi karo inuu suuqa la soo galo lacagta kaydka ah ee gudihiisa tahay. Sidaad wada ogtihiin, bangiga dhexe dowlad walba bangiga dhexe ayaa u haya lacagta dowladdaas oo dhanba. Waa meelaha mushaharaadka laga bixiyo, waa meelaha dowladdu waxaan ku wada qasnadeeda lacagta kusoo dhacdo. Dhammaan bangiga dhexe ayaa lacagta dowladda oo dhan baa haya. Haddii uu dareemo in qiimaha lacagta dalkooda hoos u dhac ba'an uu ku soo socdo, bangiga dhexe waxa uu samayn karaa inuu hal mar kor u soo qaado isaga oo suuqa iyo sariflayaasha saameyn weyn ku yeelan kara. Suuqa iyo sariflayaasha inageenanba haddii maanta bangiga dhexe uu lacagtiisii aynu maanta iibsananay ama sal ugu jirnay uu kor u soo qaado maanta dhool lacagteeda qiimaheedu waxay taagan tahay heer sare, inagii waynu ku khasaaranaa. Marka bangiga dhexe isagu meesha wuxuu u joogayo dowladduba in lacagtoodan suuqan ku heehaabasa ay marba kaydkooda lacagood ay marba kor ugu soo qaadaan si aynan suuqan qiimo dhac iyo sharaf dhac dowladdaas aysan ugala kulmin xagga lacagtooda. Hadafka ugu weyn ee suuqan ugu jiraana waa inay xasiliyaan isbeddelka ku imaan kara lacagaha dalkooda maadaama qiimaheedu hawada heehaabayo. Si fudud ayay sariflayaasha kale u saameyn karaan inay xasiliyaan lacagta dalka. Maraykanka bangiga dhexe wuxuu suuqan ugu jiraa inuu xasiliyo lacagtaas. Bangiga dhexe ee Maraykanka iyo ka Yurub iyo ka waxaan ku Ingiriiskuba waxay suuqan soo weerayaan qiimaha lacagtooda ka taagan tahay. kaydkooda ugu weyn markaa kan lacagtooda qiimo dhac waaran ku yimid
ayay soo kabayaan. sidoo kale dawladuhu waxay uga faa'iideysan karaan oo kala suuqan marka Mareykanku uu doonayo China inuu alaab ka soo iibsado waa inuu lacagtiisa suuqa sarifka lacagaha qalaad keenaa kadib uu bedelaa lacagta Chinese-ka kadibna uu ku soo iibsado alaabtii uu doonayay sida inagoo kala ma aho oo inagu dollar baynu iska isticmaalnaa wadeenaga dhaqaaleyna mar hore buray laakiin iyagu dal walbaaba lacagtiisa adag waxantiisa wax lagu iibsan maayo marka Mareykanku markuu lacagtiisa suuqan keeno uu sarifo lacagta Chinese-ka u sarifo meesha qofkii kala sarifaya ma suuq fosfor hadii la keeno faa'iido fiican baa laga helayaa halka waxaan ku soo koobanaa sida ay qaybta uga yihiin bangiyada dhexe iyo dawladahooda waaxda labaad waa bangiyada khaaska loo leeyahay waxaa jira bangiyo gaar loo leeyahay oo iyagu dhexdooda kala sarifta lacagaha kuwaas oo loo yaqaan bangiyada suuqa sameeya waa market makers waxa English lagu dhaho waxa ay haystaan kayd lacageed oo ay ku soo iibsan karaan lacag uu dal leeyahay isla markaasna ay lacagtaas iyagu sii iibiyaan si qiimaha asalka ay ku soo iibsadeen iyo qiimaha ay iskaga sii iibinayaan ay dhexdooda faa'iido u helaan waa bangiyo khaas loo leeyahay oo dad baa leh magac bay leeyihiin dawladaha ay lacagoodii ka soo iibsadaan kadibna dawlad kale lacagteed bay ku sarifaan sida kala bedelka inta leeg ay lacag fiican uga faa'iidaan waan runtii waa bangiyo lacag waaweyn haysta suuqana saameyn weyn bay ku leeyihiin waxaad maqlaysaa adoo lacag ku jira market makers baa soo galay inay suuqa si waaliya u dhaqaajinayaan badanka waxay ka faa'iideystaan marka newsyada iyo waxaas jiraan wararka siyaasadda iyo waxaan ku waxyaalaha saameeya suuqa markay soo dhacaan iyagu suuqa dhinacay rabaan u kaxeeyaan oo lacag waaliya la soo galaan kooxda saddexaad ee suuqan iyaguna qaybta ka ah waa ganacsatada iyo shirkadaha waaweyn waa rag ganacsato ah waa ganacsatada caadiga baayac mushtarka ah iyo shirkadaha waaweyn oo sida kuwa Hormuud Telesom Golis oo kala dahabshiil kuwaas oo kala baa suuqa iyaguna qayb ka ah hadaba sideebay qayb uga yihiin kooxdani iyagu waxay suuqa u soo galaan fursad ganacsi ah waxay la soo bareeraan hantidooda khaaska ah iyagoo fahansan in ay faa'iido ballaaran heli karaan sidoo kalena khasaaro ba'an ay la kulmi karaan inta badan waxay adeegsadaan shaqaale u tababaran xirfadda akhrinta xaaladda suuqa farsamaha shaqaale u tababaran bay adeegsadaan oo waxaan si wacan u yaqaana oo adoo maanta Soomaaliya suuqan dhinac walba u dhaqaaqay fahmay shirkadka iyo ganacsatada ugu shaqeyn kartaa waxay sidoo kale go'aamadooda ku saleeyaan inay la socdaan warka iyo warbixinta ka soo baxa bangiyada khaaska ah iyo bangiyada dhexe ee ay dawladaha suuqa saameynta badan ku leh ay ku leeyihiin bangiyada la socdaan waxay la socdaan bangiyada dhexe ee dawladuhu leeyihiin sidoo kale waxay la socdaan bangiyada khaaska loo leeyahay warbixintooda si ay lacagtan iyagu nooga faa'iidaan ganacsatada shirkadka waaweyn طبعا dahabshiil oo kale ama shirkadaha bangiyada Dar es Salaam oo kale bangiyadaas oo kale lacagta iska dhaxtaala badanka ma sameynayaan in lacagtu ay bangiga iska dhaxtaala way xogta mayso way maal gashanayaan waxay ku maal gashanayaan waxyaalo badan forex baa kamid ah waxyaalaha ay ku maal gashadaan lacagtan bay sidooda u soo qaadayaan forex bay dhex keenayaan lacag badan oo 1 milyan ah bay iibsanayaan مثلا oo dollar ama 1 milyan oo euro kadib lacagta markay iibsadaan lacagta euro markay kor u kacday 1 milyan iyo 500 kun oo dollar ay u gaadho bay kala soo baxayaan oo lacagta euro markay kor u kacday saasay bangiyada shirkadka iyo ganacsatada uga faa'iidaan oo lacagtu haday meel iska taalo wax faa'iido ma laha ganacsatada oo kale waa sidee hadda Bill Gates iyo ninkan iska la meeshan la dhaho Amazon iyo nin walba oo qof walba oo tiilaayo lacag hayso waxaad maqlaysaa sanadkan lacagtiisa intaas oo kun bay korodhay maxaa korodhay bangiga taalebe waxay ku korodhay suuqan oo kala buu keenayaa lacagtii meesha bangiga iskool ku dhayaan inuu faa'iido kale iga sameeyo 1 milyan oo 1 bilyan oo kala buu dhiibaya laga yaabo inuu ilaa 500 milyan oo dollar u daro marka lacagtiisu waa inay iskorisaa haday meel iska taalo lacagtu waxaan ku wari faa'iido ma lahan iyaga ganacsadaha iyo shirkadkuna qaabkaas ay qayb uga yihiin suuqa waxaan maleynayaa halkan ay fahanteen shirkadka waaweyn ee dhaqaalaha haysta waxay si joogto ah u maalgashadaan suuqan waad inta ka soo hadlanay
sarifka lacagaha qalaad waxayna qayb libaax leh ka qaataan hadba suuqa dhanka uu haysto. waxay shaqaalaysiiyaan xirfadleyda ugu haysta cilmiga suuqan. waxay sidoo kale maalgashadaan tiknoolajiyadda iyo barnaamijyada kombiyuutareed ee ka caawinaya akhrinta suuqa iyo gaarista go'aamo ay ku faa'iidi karaan. waxay adeegsanayaan dad suuqan xirfad iyo u leh aqoon ama shirkad aqoon u leh, kadib bay lacagtooda u dhiibayaan, kadib baa loogu shaqeeya. sidoo kale waxay adeegsanayaan barnaamijyo kombiyuutareed oo suuqan intuu akhriyay dee fahmaya meeluhu aadi doono, oo qaabkaas iyaguna uga faa'iidaan shirkadda. kooxda afraad ee suuqan iyaguna qaybta ka ah waa hanti maamulayaal iyo maalqabeeno. sidoo kale waxaa suuqan qayb weyn ka ah baan nidhi shakhsiyaadka iyagu samaysta shirkado ay khaaska u leeyihiin oo doonaya inay dadka shakhsiyaadka ah ee hantida haysta inay lacagtooda ugu shaqeeyaan, iyagu oo ku maalgelinaya suuqa sarifka lacagaha qalaad. hanti maamulayaashu waxay suuqa la soo galaan lacag aysan iyagu lahayn oo ay ka soo ururiyeen shacab doonaya inay faa'iido helaan, balse aan suuqan aqoon u lahayn. marmarka qaarna waxay lacago ugu shaqeeyaan dowladaha qaybtooda iyo xitaa bangiyada qaybtooda. halkan waxaa xusid mudan hanti maamulayaasha maanta tusaale waxay noogu filan Soomaalida. hanti maamulayaashan bartan hadda laga warramayo suuqan qaybta weynka ah, iyagu waa rag suuqan ku soo jiray above 10 year 10 year bay ku soo jiraan experience ugu yar baa 10 sano experience haysta. qof Soomaaliya oo gabigiisu waa maxay forex laga yaabo inuu 2 bilood ka hor bartay baa wuxuu dhahayaa maanta aan idinku shaqeeyo lacagtiin ay soo ururiyeen. waxa maanta dad Soomaaliyeed oo badan ugu dhacay qof aan suuqan xirfadba u lahayn, qof aan suuqan gabigiisuba Soomaaliba gabigeedu 2018 2017 ay forex-ka aad u maqleen ay galeen. qof aan aqoontaaba u lahayn beenta u dhaho aniga idinku shaqeynaya keena never. laakiin kuwan hanti maamulayaasha bartan ku jiray kuwa ma aha, waa experience waaliyaysa. kuwaas maxay sameeyeen? tusaale waxay noogu filan hal mid oo hadda shaqeysa ma jirto, mid walbaaba lacagtii ay ummadda ka qaaday inay forex geeyaan mahan tabteeda u culeen. insha Allah iyagana qiyaamaha la soo xaadiri doona. dadka Soomaaliyeedna waxaan uga digayaa inta maanta halkan iga dhigaysanaysa in aysan cidna lacagtooda u dhiiban oo ay iyagu ku shaqeystaan xirfadeedana bartaan. nahantii oo wallaahi thumma wallaahi waxaan ku dhaaranayaa hadduu qofku maanta uu suuqan barto in uu ka gaari doono yool weyn, lacag fiican oo ka samayn karo familkiisana ugu shaqeeyo. qaybta ugu dambaysa waa shacabka intiisa kale, oo waa qaybta shanaad ee inta shanta waaxood ee suuqan sariflayaasha qaybta ka ah. qaybta shanaad waa shacabka intiisa kale, waa aniga iyo adiga. aniga waa Cabdiraxmaan Ragaaxa iyo idinku hadda dhageysanaya. kooxda ugu tabarta yar ee ugu maskiinsan ee suuqan qaybta ka ah waa shacabka aniga iyo adiga oo kale ah, oo aynu suuqan fursad u helnay kadib markii internet iyo tiknoolajiyadu ay fududeeyeen inay soo baxaan dilaalin internetka dhexdiisa ka shaqeeya oo noqda buundo isku xira shacabka jeebyaraha ah oo aniga oo kale ayo dhowrka boqol iyo dhowrka kun iyo la soo gala ah iyo madaxweynta kale oo ka shaqeysta suuqan lacageed ee adduunka ugu weyn. dulaalkaas baa inoo sahlan. dulaalku waxba hadda bartan ku faahfaahin mayno, waxaan brokerka ama dulaalka afsanaha lagu dhaho insha Allah waxaan ka hadli doonaa mowduuc video bes kaliya khaasa. dulaalka suuqan inoo fududeynaya ee loo yaqaano brokerka, isagu waxa ay tuubo ugu jirtaa kaydka lacageed ee bangiyada khaaska loo leeyahay iyo bangiyada dhexe ee dowladaha. deedna waxay noo sameeyaan baro internetka dhexdiisa ah oo aynu mobilkeena ama kombiyuutar aynu ka geli karno halkaas, oo aynu noo soo geliyaan lacagihii dalalka oo iyagu si jumlo ah u soo gateen. waa brokerkii. deedna aynu inagu barta dhexdeeda ku sii kala gadano waa barta internetka, iyaga oo tafaariiq ahaan nooga siinaya lacag ka badan tii ay jumlo ahaan uga gateen si ay faa'iido uga dhex sameeyaan.
baroorku isagoo lacagii oo dhan buu jumlad ku soo gatay kadib bar internet buu inoo furay akoon buu inoo furay akoonkaa uu inoo furay baan lacagteennii dhex dhigannay lacagii uu jumlahaanta u soo gatay oo laba oo iyo beris waan iyo beris ku sheekeynay casharka hore laba isku raacayo euro gb baynu halkaa ku kala sarifnaa sarif ahaan kadib inagu saasaynu qayb uganaa waxay noo fududeeyey internet kadibna waxay noo fududeeyey brokerka inaan dhexdiisa intuu lacagaha badan soo iibsaday broker simply waa bangi soo iibsaday lacag kadib lacagtiisa uu ku shubtay meeshiisii jumlahaan buu lacagii oo dhan soo iibsaday kadib lacagihii baan qiimayaashoodii inaguna hadda say u hehaabayaan dhexdiisa internet ahaan ugaga shaqaysanana innaga shacab ahaan qaabka aynu uga shaqaysanaa waa sidaa iyo hadda shaashada idinka muuqata inahaasan kusoo gabagabeynayaa saaxiibayaal dhammaantiin waad mahadsantihiin sida wacan aad ii dhegaysateen sidoo kale wixii su-aal ah iyo wixii bahalkii raba insha allah waxaad igu soo gudbinaysaan commentiga channelkeena youtube sidoo kale channelkeena telegram sidoo kale facebook aan ku leenahay Malefegas Academy intaba Malefegas Academy waa noogu qoran mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaada saaxiibayaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته